Waxaa maanta magaalada Muqdisho mar kale si rasmi ah uga furmay loona ambaqaaday shirkii u dhexeeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madasha samata bixinta Soomaaliyeed oo ay ku mideysan yihiin siyaasiyiinta mucaaradka. Shirkan ayaa waxa uu yahay shir muhiim ah oo ay dhinacyadu kaga hadlayaan arrimo kala duwan oo ku aadan xaaladda guud ee dalka, waxaana dhinacyadu maanta dooda ugu weyn ee ka yeelanayeen qodobadii afarta ahaa ee looga hadlay shirkii ka horeeyay, oo ahaa adkeynta midnimada dalka, hanaanka dib u eegista dastuurka, amniga iyo la dagaalanka Al-shabaab, iyo hanaan doorasho toos ah oo heshiis lagu wada yahay. Qodobadaas ayaa weli waxay yihiin mid ay siyaasiyiintu si weyn kaga doodayaan. Warar kale waxa ay tilmaamayaan in labada dhinac ay soo wada saarayaan guddiyo ka wada xaajooda qodobadaasi, maadaama ay yihiin qodobo muhiim u ah dalka. Madasha mucaaradka Soomaaliyeed ee samata bixinta ayaa waxa ay dhankooda qorshahoodu yahay in madaxweynaha Jamhuuriyadda ay kala xaajoodaan tabashada ay qabaan. Shirkan oo soconaya ama ka socda magaalada Muqdisho ayaan la saadaalin karin waqtiga la soo gabagabeynayo iyo waqtiga ugu dambeeya ee go'aanka laga soo saarayo. Siyaasiyiinta mucaaradka ah ee la kulmaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Dr. Xasan Sheekh Maxamuud waxaa hogaaminaya madaxweynihii hore ee dowladii ku-meel gaarka ahayd ee dalka Sheekh Shariif Sheekh Axmed, Xasan Cali Kheyre, Ra'iisul Wasaare Roble, Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake, guddoomiyaashii hore ee Golaha Shacabka, siyaasiyiin iyo sidoo kale rag miisaan culus ah oo dhanka mucaaradka matalayay. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya, mas'uuliyiinta dowladda ka tirsan oo shirkan kula jira waxaa ka mid ah Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka dalka oo shirkan goobjoog ah. Siyaasiyiinta mucaaradka iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa shirkooda maanta dib u ambaqaadeen qodobada looga hadlay shirkan, ayaana qorshaha waxa uu yahay inay warbaahinta la kala wadaagaan filla Soomaaliya iyo sidoo kale Golaha Samata Bixinta Soomaaliyeed oo ay ku mideysan yihiin mucaaradka. Julasha warbaahinta dalsan Muqdisho.